wafdi xisbiga wadaniga oo hogaaminaya wasiirkii hore biyaha Soomaaliland Baasha Cali Jaamac ayaa waxay maanta soo gaareen magaalada Ceerigaabo waxaana wafdigan duleedka Ceerigaabo ku soo dhaweeyay maayarka Ceerigaabo madax dhaqameed saraakiil iyo mas'uuliin kala duwan oo xisbiga wadaniga ka tirsan iyo waliba taageerayaal kale oo tiro badan waxaana ugu horeyn hadallo kooban oo soo dhawaynta wafdigan halkaasi ka yiri maayarka Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur gudoomiyaha xisbiga wadaniga gobolka Sanaag Daade Jaamac Xasan gudoomiyaha guddiga ololaha gobolka Sanaag Maxamuud Cawad madax dhaqameed iyo mas'uuliin kale waxaana hadalladooda ka mid ahaa waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa wasiirkeenii hore Baasha Cali Jaamac wasiirka khayraadka biyaha iyo balasaab ku-xigeenkeenii hore Naale Axmed Sheekh rag badan oo siyaasiyiin oo waaweyn oo reer Sanaaga waxaan leenahay soo dhawaada waxaana leeyahay kulmiye intii u dambeysay maanta heerfaa laydin qaaday in abtiyaashay raggii ugu sarreeyey ay maanta xisbiga wadani ku soo biireen aniga farxad gaar ah ii tahay raggan waan ugu faani doonaa abtiyaal soo dhawaada aniga maanta abtiyaashay waad aragtaan qoladii kale ee aanu abtiyaashood isku haynay abtiyaashiin meeya baan leeyahay Ismaaciil Xaaji Nuuriye baa ka mid ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halka ku soo dhaweyno wafdi aad u ballaaran oo hogaaminayo wasiirkii hore khayraadka biyaha mudane Baasha Cali Jaamac iyo gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Sanaag mudane Naale Axmed Sheekh iyo wafdi aad u ballaaran oo qiimo leh oo ay hogaaminayaan aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaa gacmo furan waan ku faraxsanahay maasha Allah Baasha Cali Jaamac wasiirkii khayraadka biyaha Naale Axmed Sheekh iyo wafdida ay hogaaminayaan waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolka Sanaag soo dhawaadaan u leenahay dhinaca wafdiga ayaa iyagana waxa socdaalkoodan ka warramay wasiirkii hore biyaha Soomaaliland Baasha Cali Jaamac isagoo hogaaminaya wafdigaasi ugu horeyn waxaan salaan diiran ku salaamayaa madaxda halkan igu soo dhaweysay oo ka mid yahay maayarka magaalada Ceerigaabo madaxda xisbiga xildhibaano waxgarad cuqaal haween dadweyne sida diiran isoo dhaweey aad baan idinku mahadnaqayaa taageerayaasha wadani waxaan u sheegaynaa in si nabadgelyo ah ay codkooda ku bixiyaan wixii qalaan ciddii samaysan la arko laakiin aan qalaan dhinaciina aanu marna ka imanin intaasi kadibna wafdigan ayaa waxaa loo soo galbiyey dhinaca gudaha magaalada Ceerigaabo oo Cabdullaahi Xuseen Darwiish Somali Cable TV Ceerigaabo